in ka badan 1200 arday iskugu jiraan wiilal gabdho ayaa maanta dhigan dibadbax ay kaga soo horjeedaan maamulaha dugsiga sare ee xarada qaxootiga Dhagaxley. Ardaydan ayaa iskugu soo baxeen fagaaraha weyn ee UNHCR oo doonay inay halkaasi kaga soo bandhigaan cabashadooda, waxaana meesha iskugu imaadeen laamaha iyo sidoo kale hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR. qaar ka mid ah ardayda dibadbaxayna ayaa warbaahinta halkaasi kula hadleen. magacayga waa Samow Aadan Jalle, waxaan ahay ardayga ugu da'weyn iskuulka Tawakal. aniga oo daa ayaan iskuulka Tawakal ayaan hadda form 4 ah 2016 baan galaas soo bilaabay ilaa iyo hadda galaaska afraad baan soo waxa waaye iskuulka dib baan ku qabnay. dibka maanta na soo kiciyay ee ardaydan iskuulkoodii ay dhiganayeen ka soo bixiyeen waxa waaye waa dhibaato jirto. dibkaas oo ah nin maanta waxbarasho haysto oo secondary haysto oo waxbarasho haysto waxbarashadiisi kama tagay 1500 arday baan nahay 1500 arday maanta inay isku raacaan inay iskuulkoodii ka dhaqaaqaan waa dib keene. Soomaalida waxay tiraahdaa ciyowga dharaar ciyay wixii ka ciisiyo qaba waraabo duur magaalo ka dhaxyeeray hadaad aragto wuxuu u yeeray inuu qaba waraabo duur magaalo ma dhaximaado. maanta waxaan u sheegayaa dadkan dhageysanaya dadkan daawanaya dhibaatada maanta banaanka na keenta mid fudud ma aha, mid laga soo qaado meel dhowna ma aha. dhibaatooyinkaas oo ah annaga helmasta iskuulka noo joogi jiray iskuulkan 11 sano dhisay sanadkan 11 u ah 8 sano ma helmasta maamulay weligeed iskuulka performance-kiisa ma aragtay hoos uma dhicin bundadiisa hoos uma dhicin. ninkan 2 sano nala jooga 2 sano nala joogo ilmaha annaga iyo D waxaan ma qaatan waxaasna waxa keenaya waa maamul xumi na haysato meeshii marka waxa yaala macallimiintii gaalada ahaa waa un mid ku garaacayo ul kula daba taagan iyo mid uu albaabka ka xiranayo buugaagti library-ga taalay oo ilmaha ay u baahnaayeen oo hay'adaha samafalka noo keeneen ee jaaliyadaha noo keeneen ee ardaydii Soomaali maaragtay youth society ay noo keeneen yaa hadda nooga xiran library-ga. ninba Adna Qaasim Xuseen waxaan ka mid ahay ardayda Tawakal Secondary School. waxaan ka caawinaynaa waa maamul xumo sida sheegay wiilashii iga horeeyay. maamul xumo iyo waxbarasho la'aan aan ugu qasabtay oo maalmahan dhan nawadeystay. BTA waalidiinta u tageen hay'ad walba waa loo tagay oo waxbarashada shida yetu ni kwanza mubadilishe mwalimu mkuu wa shule yetu Tawakal Secondary School. Ya pili, sisi tuko hatuna walimu wetu hawakutosha, hatuna viti vya kukaia, tuko na shida sana ya viti, kuna shida sana ya mwalimu, na vile vile ambao tumeungana na walimu wetu na wakuu wetu wa shuleni na wakurugenzi wetu wa shuleni tumekosa kwamba kale waxaa meesha ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta dhalan ardayda kaasoo aad uga soo horjeedsadeen dhammaantooda. midda oo aan wiligan caalamka dhacay ma dhixir doontana ma ardayga waxa loo baahan yahay bulshada soo dirsatayba arday xiisadiisa inuu yahay arday xiisadiisa iyo waqtigiisa duuslin waxaas ma soo aan nolol ma taal meeshaas waa dhibaato arday xuquuqdiisa beelayo uu dhintay marka waxaan codsanaynaa hay'adana UNHCR waxaan la rajaynayaa in sida ugu dhaqsiya badan cabashada ardaydan wax laga qaban doono, inkastoo dhalinyarta ay sheegeen inaysan iskugu ku laaban doonin haddii aysan waxba ka qaban cabashadooda hay'adaha samafalka ee ka howlgala gudaha xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Xasan Kaafi, Badcas Television TV, xeryaha qaxootiga Dhadhaab.